Dhamaan asxaabta nagu xiran waa salaamantiin asxaabey waxaa ka cudur daarana xoogaa mashquul ay soo galay barnaamijka Wish kama soo hadlin oo lacag anoo ku shubay anoo ka bixinaya iga sugayseen runtii umana baahna asaga in lacag lagu shubo laga bixiyo barnaamijyadii hore camal u shaqeynaa lacag waa lagu shuban karaa intaa kala hadli kartaa way kusoo jawaabayaan Telegram ay leeyihiin ku siinayaan saas ula hadli kartaa asxaabey barnaamijkan wax badan kuma fogaanino waa un sidii maaragtay barnaamijyadii hore u shaqeynayeen teeda kale cid kula talinayna malahan dadkan gadaal ka soo galay oo bahalahan sheekooyinkan aan fahamsanayn aan iga daba geenayna barnaamijyadan waxay u shaqeeyaan barnaamijyo ku meel gaar ah waaye lacag waa laga helaa laakiin ku meel gaar waaye adiga waxay jiraan 2 bil iyo 3 bil ugu badnaan jiraan anakana inta ugu badanaa ku jirayna waxaa waaye bil iyo wax ka yar waxaa ku jirnaa 15 maalin sida aan dad kula taliyo 15 maalin markaa ka shaqaysato lacagaha kala baxa dhaha dadka barnaamijyo kale taa idin keena oo cusub sida Wishkan oo kale hadduu cusub yahay waa ka shaqaysan kartaa marka qaabkaas waa qaabka anaga hadda ku shaqeyno marka asxaabey waa qaabka kaliya ugu badbaadi karto suuqyadan cid kula talinayn lacag iyo yacni ay ka maarmeen inay geliyaan ma jirto waxba ha gelin lacag ka maarmeynin waa suuqyadan waa suuqyadii sida CJ-ga camal oo dadka lacagtooda qaadanayay markuu cusub yahay unbaa ka faa'iideysaa marka dambe ma ka faa'iidi kartid way kaa qaadanayaan lacagta marka asxaabey barnaamijkan rabnaa maanta inaan lacag ku shubno oo aan ka bixino qaabka u shaqeynayna Grabkan unbaa taabanaysaa qaabka waxaa waaye asoos qofkii yaqaano barnaamijka asoos hadda uu shaqeynayaa oo saaka laftirkeeda lacag ay soo dirayeen barnaamijkaas uu shaqeynaa qaabka asooska unbuu u shaqeynayaa asagana oo ujeedaan saaka laba xabo camal aad taabtay intaa fiidiyowga duubin ka hor yacni Grab buu shaqeynaa wuxuu ku siinaa boqolkiiba 0.26 yacni alaabta gadaysid intaasaa ka faa'iida lagaa siinaa 0.26 yacni that means haddaa $100 alaab joogadid waxaa lagu siinaa 0.26 lagu siinaa saas camal waaye marka ujeedaan aan lacagta haysta aad u yaray 0.3 haystay 0.3 da laftirkeeda ku shaqeynay 4 order qabtay 0.0008 shaqeeyay yacni qaabkaas camal waa asxaabey marka waxaan rabaa inaan lacag ku shubo oo hadhowtina aan ka bixiyo saa u aragtaan inuu shaqeynayo barnaamijkan already asxaabey dadaaba lacag ku shubteen waxaa ku shubteen 2 qof miya mise 1 qof ku shubtay oo saaka u jeeda 0.3 iyadoo ii soo gashay marka dadaa already lacag ku shubteen asxaabey ujeedaan 1 qof ku shubtay 51 ku shubtay one active ka socdaal ku shubtay 51 marka asxaab badan waxaa jirta riskiga ka qaadanaya oo fahamsan qaabka suuqa riskiga loo qaadanayo dad badan oo ka shaqaystay asxaabey waxaa idin tusaa dad yar oo ka guuleystay maxaa la barnaamijka asooska markaa bilaabeynay galeen asaada ani ma keenin asxaabey asaada barnaamijkaas waa ka hadla laakiin barnaamijkaas waxaa noo keenay asxaabta oo meesha ku jiraan markaa kasoo hadlaya asaadana sababta uga soo hadlaya idinka laftirkii fiidiyowgii koowaad asaada oo soo fiirin kartaa waxaa dhahay suuqa CJ camal ayaa la maalgashan asxaabtii waa maalgashteenba marka asxaabey waxaan u isfuray waxaan rabaa inaan wax yar idin tuso barnaamijka asoos asxaabta ka faa'iiday sida qaabka uga faa'iideen fiiriya asxaabey Najiib wuxuu ku shubtay 170 ku shubtay markii waagii oo bilaabeynay dadka ugu horreeyay waa Najiib 170 ku shubtay meequu kala baxay 208 kala baxay meequu faa'iiday 170kiisi fiiri yani $38 faa'iiday ilaa haddana wuu kasii shaqaystaa marka asxaabey qaabkaas waa qaabka aan rabay inaa uga faa'iidaysataan qofkan fiiri 988 ku shubtay 555 ka baxsaday wax ma xumo okay waaye qofkan fiiri 130 ku shubtay 170 kala baxay wilina wuu kasii shaqaysan waaya qofkan 150 ku shubtay 271 ka baxsaday fiiri deeqo maasha Allah aad uga shaqaysatay 150 ku shubatay 272 meeqa ka faa'iiday asxaabey $100 ka faa'iiday xoogaa marka
qaabkaas waa qaabka aan rabo asxaabay inaa uga faa'iidaan. Ma rabo inaa meeshan ku khasaartaan. $200 ku shubta, $139 oo ka baxsaday, welina waa kasii shaqaystaa. Okay waa, ani qaabkan waa qaabka rabo asxaabay. Suuqan ha ku sii fogaanin. Wax yar ka shaqayso, anaa suuq kale idin keenayo. Laakiin ha ku sii dheeraanina suuqyadan asxaabay. Marka wax yar ku jirtaanba ka soo baxa. Dad waxaa jiraan macalasaf oo luuqadeena fahmaynin Soomaali ahayn oo suuqyada lacag ku shubtaan ilaa haddana waxba ka baxsanina jiraan. Ani taladeeda si ku qaadanaya luuqada ku hadlayo ma yaqaanaan. Laakiin idinka Soomaali luuqadeeda waa taqaanin sida idin sheegayo waa fahmaysaan. Suuqan qaabka looga shaqaysanayo waa idin fahamsiinoya tactic-adiisa wax dhan inuu cusub yahay. Markuu cusub yahay idin keenoya. Waa idinka tijaabinoya xataa anaa lacag ku shubanayo riskiga koowaad anaa qaadanayo waa ka bixinaa. Marka asxaabay qaabkaas u trade gareeya suuqyadan riskiga qaabkaas u qaata. Qofna kulama talinayno lacag uusan ka maarmaynin inuu geliyo suuqyadan. Mar walbo waa idinku celceliya asxaabay. Hadhooti injineerka wuxuu nagu riday dhiiqa ha dhihinin. Ka asxaabay waa bilaabeynaa. Waxaan sameynaynaa recharge dheena. Qofka aqoonin qaabka lacagta suuqyadan lagu shubo ha ka faa'iideysto. Kadib next yaa leedahay. Iska hubi asxaabay inuu yahay USDT TRC20 meesha lacagta ku shubayso. In isla hadan mar walba muhiim waaye. Ujeedaan USDT waaye. TRC20 inuu yahay waxaa ku fahmaysaa. Okay, soo qorey. Laakiin ugu noqono iska soo hubino. Ujeedaan ma asxaabay TRC20 waaye. Deposit address-ka. Okay. Marka ani waxaan rabaa inaan ku shubo $30 rabaa inaan ku shubo. Confirm ha. Asxaabay iska ilaaliya. Waxaa laga yaabaa inuu time qabanayo fahamtiin 30 daqiiqo qabto. 30 daqiiqo inaa u shubatid waa lacagtaada. Si hadhooti lacagtaada aysan qalqiil u gelin. Address-kan isii, address-kan oo copy dhahana. Address-kan ilaa 30 daqiiqo qaadi un baa lacag ku shuban karo. Qof kale lacag ku shuban karto. Marka qaabkaas asxaabay taxaddar hala sameeyo. 30 daqiiqo haysataa lacagtina ku shubtid. Waxaa jiraan dad oo lacagtooda gacan labaad marayso. Qof intuu lacag ugu shubo hadhootina maaragtay lacagtii 30 daqiiqo wax ka badan asagiina uu ku soo shubo 20 daqiiqo eedina maaragtay ku sii shubto maxaa lahaa 20 daqiiqo kale 40 daqiiqo maraysiin suuqan lagu mugaa 4 daqiiqo. Ka asxaabay kan $35 ka goosana fiiga waa Ethereum-ka aad u qaali u yahay Ethereum-ka. Iska ilaali iyo lacag badan ka goosan. Tron-kan dooro oo $1 USDT goosanayo. Tron-kan markaad doorto address-kaagii oo aad soo copy-stay ku siiyeen lacagta lagu shubay. Meeshaan paste ku dheh. Lacagta rabtid inaad ku shubatid suuqana inta ku qor. Weliba 31 iga dhig. Kadibna wax maharin buu waxaa leedahay withdraw. Kadibna waxaa gelinaysaa code-ka dirsanaysaa oo ku soo dhacdaca. Okay. Hadai. Sana copy-sanaysaa. Copy dhahanaysaa. TR-ka ku noqonaysaa. Xogaa maqaan asxaabay maqadkiga culeysa mobilka culeysa. Saaki cilada ujeeda. Kadib email-ka soo qaadanaysaa ama Gmail-ka wuxuu kugu xiran yahay Gmail ayuu xiran yahay.
saaka waa iisoo diri lahayaa Gmailka. Maxaa qaldan? Okay, hadda usoo diray. Isagana waa koobiyeysanaysaa. Asxaabey, markaa Binance lacag ka shubanayso buu waddooyinkan ku marmarsiinaa, laakiin marka kaleeto barnaamijyada kaleeto lacag kaga shubanayso saas makuu marmarinayo umaleynaa. Saa makuu wareejinayo, way ka fududahay umaleynaa. Labadoodaba haddii mid cusub aad dirsanaa asxaabey, waa iga diiday kii horeeto. Kana isaga tijaabinaynaa. Waa uu yeelay. Okay, asxaabey, waxaa ujeedaan way soo gelaysaa lacagta wax yar kadib. Qaabkaas waa qaabka lacagta ugu shubanayso asxaabey. Dib waa shaqaynaynaa, lacagta ka bixinaynaa. Inkastoo 4 order aan qabanay. Uma baahnid inaad wax kale ka qabatid, kaliya waa inaad sugtaa. Soo galay. Weli ma soo gelin, laakiin asxaabey meel waxaa jirta laga fiirin karo ay tusaa 30 yariisa. Recharge-ga taabanaysaa, meeshas ma jirtaan kore, meeshas soo furaysaa. Kadib online-ka taabanaysaa. Waa ujeedaan lacagta 30 way soo gali rabtaa, laakiin unconfirmed waaye. Waa inay ayaga aqbalaan ay dhahaan lacag way noo soo gali kartaa oo kaleeto. Haddii diidaanne ma soo galayso. Qaab noocaas ah ayaga inay confirm gareeyaan waaye. Marka haddii 30 kaa maqan tahay oo aad dhahday waa ku shubtay inaad meeshan ka aragtid. Haddaa inta ka aragtid lacagtaadii xaq waxaa u leedahay inay kugu shubaan. Ayaga waa la hadli kartaa. Laakiin haddii xagas kaaga soo muuqanaynin lacagta ayaga ma soo gaarin. Maxay aqbalaanba. Marka ayaga hadda weli aqbalin lacagta, laakiin process waaye. Markaa fiiriso meeshaan laftirkeeda processing waaye. Inta laftirkeeda processing u dhahay. Okay, inuu complete dhaha waaye. Waa sugaynaa asxaabey wax yar. Asxaabey hadda waa la confirm gareeyay. Waa ujeedaan success aa ku qoran meeshaan. 30 dhanka kaleeto ka fiirinaynaa. Waa ujeedaan 30 wuu ku jiraa. 30 wuu soo galay. Qaabkaas qaabka ugu shubanayso waaye. Qaabka ugu bixinaysana waxaa waaye. Isaga markaa shaqeyna kadib ka bixinaynaa asxaabey. Waa isku soo noqonaynaa. Asxaabey qaabka loo shaqeynayo waa qaabkii maaragtay oo asoos loo shaqeynayo kaleeto loo shaqeynaa. Qofkii asoos yaqaano kan uu yaqaanaa. Laakiin asxaabta aan aqoonin qaabkaan loo shaqeynaa asxaabey. Grab-kaas taabanaysaa. Grab-kaas taabanaysaa uu wareeganaa. Nambarku kugu aado wixii ku xusanaa lagu siinaa. Alaabtaas gaday 14 gaday intaas laga siiyay percentage-kaas. Ka asxaabey tala ahaan waxaa siin lahaa maadaama suuqan uu cusub yahay in intii ku jirta suuqyada kaleeto sida maaragtay asoos oo kaleeto
Asa hada wuuba yaacaba si intii ASOS ku jirtay inay suuqyadan wiishkan inay maalgashtaan. Waa run ASOSka ka lacag badan, ASOSka wuxuu dhiibaa kan dhabalkiisa kan intuu dhiibaa in ka badan uu dhiibaa. Laakiinse dee ASOS waqtigiisa uu dhammaan rabaa asxaabay. ASOS lacag badan oo ka maqan maybe inuu sii jiro si uu lacag u helo waa inuu sii jiraa. Laakiin lacagihii dadka uu sii siinayay dadkiina suuqyada way fahmeen marka god cidlo ku jiraa isleeyahay ASOS. Maybe wuu helaa dad oo maaragtay iska doqom ah sida kuwa hadda luuqadeeda aqoonin oo kaleeto channelkayga iska diiwaangeliyay linkayga haddana lacag badan ku shubtay wax 900 ku shubanaya asxaabay Soomaali maana u maleynaa. Waa kuwan ajaanibta 400 iyo xogaa wax ku shubanaya arkay ani waxaa dhahay waqtiyadan dambe lacag lagu shubanin waa okay hadda 900 ku shubanaysid waqtigii uu bilaabanayay kanoo kale hadda lacag badan ku shubanaysid hadduu bilaab yahay ilan laakiin kaas kale riski badan waaye hadda lee ku shubanayaan $400 oo dollar waa yaabe waqti kala guur hadda lacag ku shubanaysid lacagtaada inay dhimataa oo gashaa asxaabay order ka dhameeyo isku soo noqonayna asxaabay waa dhameeyo ujeedaan contact order waa dhameeyo 0.1 siiyeen marka waxa sameynayna lacagta ka bixinayna hadda withdrawga ani already wuu i degsan yahay u maleynaa withdrawga taabanaysa ana wuu i degsan yahay asxaabay dadka aqoonin qaabka oo withdrawga loo dejiyo wax yar hadda u tilmaamo meeshan personal information ka gelis personal information ka gashid withdraw method kana taabanaysa formka ani waa kana ii buuxsan yahay waan iska dileedi karaa laakiin aad inta ka buuxsanaysaa loo jeedaa magacaaga saxda gmail-kaaga number-kaaga address-kaaga oo guriga ah Soomaaliya wax ku qori kartaa oo kaleeto Banaadir Muqdisho ku qori kartaa network-ga inta waxa doon network-ga waa kii hadirtan lacagta hadda network-kan meeshan intuu qaabka loo helayo waxaad tagaysaa Binance-gaaga ama wallet-ka aad leedahay mar walbeeto wallet un baa leedahay ani Binance ayaa leeyahay meesha ka soo helayo idin sheega mujidan deposit-kaas taabanaysa asxaabay no waa ina marka hore lacagta doorataa USDT-gana ka raba deposit-kiisa taabanaysa kadib meeshaas Ethereum waa Trona ka dhigaysaa hadhowti address lagu siinaa address-kan waa address-ka lacagta lagu soo dirayo ana address-ka aad iska leh USDT-gaaga deposit-kiisa waay kan hadda meesha ku samaysatid lacagta way ku soo dhacaysaa kan bay kugu soo dhacaysaa USDT-gaaga hadhowtina afartaada number oo sirta gelinaysaa saas ku samaysata asxaabay ani hadda waxaan rabaa inaan withdraw sameeyo waxaan tijaabinaa haddii point la saari karo asxaabay point ma la saari karaa u maleynaa haddii point laga saari karo wax ma ku reebeyno laakiin fee-gu badan yahay asxaabay iska ilaaliya 10% waaye 10% waxay noqonaysaa hadii mar walba lacagtaada kala bax asxaabay $10 haddaa la baxayso $1 ay noqonaysaa marka ani waxa kugula talin lahaa hal 10 oo la baxdaan qof walba 10 markii uu gaarto waa kala bax mujida 10 ugu badan waxa la bixis 10 haddii ku gaarto baf maybe inay naga diidaan lacagta shaqaysata un baa la bixi kartaa inay dhahaan okay wuu yeelay point-yaasha waa la bixin karaa asxaabay la socda point meesha uga tagin waxaaga dhan la bax 10% oo goosanaha suuqan 10 oo kala baxa asxaabay 10 maadaama 10% goosanayo waxba lacagtaada risk ka gelinin mar walba 10% oo ka goosanayo oo tusaale ahaan 31 waa la bixiyay hadda waa in 10% waxa noqonayo $3 ay noqonaysaa marka qaabkaas asxaabay oo lacagta ka goosanaa maadaama wax badan ka goosanayo waa inaad aragtay aad 10 kala baxdaa 10 marka kala baxdaa loo ka goosanaa 9 ku soo diraa marka saas maalin walbeeto 10 hadda shaqaysid kala bax lacagtaada 10ka baf saas ku wad asxaabay hadda lacag fiican ka shaqaynaysid oo maalintii
adiga 2 maalinba 10 way tagaysaa u malaynaa markaa ku shaqaynaysid. Maxaa ku dhacay bahalkan? Labadii maalinba yacni 3 maalinba waa ku shaqayn kartaa 10, 3 maalinba 10 markay tagto. Hana ka badin haddii 12 oo kale lacagtaada tahay 10 kale ka bixi asxaabi. Qaabkaas talo fiican waaye. Hadhowtina maaragtay waxaaga oo kaleeto 10 haddana markay gaarto saas ku 10 markay gaarto baf saas. Insha Allah waxaa idin rajaynaa asxaabay guul iyo inaad ka faa'iidaan. Hana isku daynin asxaabay maaragtay in lacaga ka maarmeynin suuqyadan ay gelisaan. Insha Allah nabadgelyo.